dhagaystayaal allaha u naxariistay raaga ogaas oo sida lagu mala weyn yahay noolaa qarnigii 19aad bilowgiisii ilaa bartamihiisii waxay Soomaali badan u aqoonsan tahay hormuudka dhaxalkooda maanso inuu yahay. tilmaantaas waxaa siiyay la fogurayaashii hore ee maansadeena raggii awoodda dheeraadka ah u lahaa kala saaridda maansayahanada ee kala hormarintooda looga dambeyn jiray. sidaa darteed tilmaanta hormuudnimo ee raage waxay ka mid noqotay arrimaha aan waana cidina muranka gelin ee sida weyn taariikhda suugaanteena ugu xusan. annaguna haddaanu nahay la fogurayaasha xilliyadan inaan kuwaa hore ku raacna ha joogtee wax kala nooma eka. sababtuna waxay tahay marka hore annaga oo ku kalsoon siday dhagihii hore ee Soomaalidu u kala garan ogaayeen gabyaaga iyo gabya iska yeelka, iyo marka labaad maansadiisa inta naga soo gaadhay oo muujinaysa inuu ahaa hal abuur ay maansa curintu aad ugu fududayd oo awood u lahaa erey waliba halka uu ku habboon yahay inuu ku hubsado. hal abuur ujeedooyinka maansa dooran ogaa kana salgaari ogaa. hal abuur tuducyada maansadiisa ilaa maanta lagu halqabsado oo ay Soomaalidu ku maahmaahdo kolka ay xaajoonayaan ee ay geedka shirka ku dhan yihiin. hal abuur ay maansayahanada cusub higsan jireen iskuna dayi jireen inay isku dheerariyaan ha yeeshee ay inta badan ku dabalumi jireen. dhanka kale waxaa raaga loo tiriyaa inuu ahaa maansayahankii gabayga Soomaalida fariisiyey, taa oo loola jeeda inuu ahaa ninkii ugu horreeyey ee gabayga ku bilaabay hooyaalayey 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 hooye, sidaana uu ku noqday ninkii dhidibada u aasay farsamo ahaan habka ilaa maanta maansada qaybteeda gabayga loo yaqaan loo curiyo. haddii si kale loo yidhaahdana waxaa la rumaysan yahay inuu isagu asaaska u dhigay tirada alannada meeriska gabayga ah lagu jaangooyo. maansada tirada yar ee raaga naga soo gaadhay waxay u badan tahay ujeeddada tilmaanta, haddii ay tahay tilmaan faras, haddii ay tahay tilmaan tiiraanyo, iyo haddii ay tahay tilmaanta murugada geerida sokeeye ay nafta aadanaha ku soo kordhiso. marahayga Soomaali badan ee maqashay isaga oo faraskiisii walhad geeraar qurux badan ku tilmaamaya, isaga oo tilmaamaya siduu uga tiiraanyooday geerida afadiisii uu isagu Faadumo ila biyale ula baxay ee uu aarku ka cunay, iyo isaga oo u baroor diiqaya walaalkii ugaas Xuseen ugaas Warfaa oo si kadis ah iilashadiisii loogu soo warramay. tixdii uu dhacdada ka mariyeyna aan jeer hore halkan idinka maqashiyey. waxse Soomaalida dhexdeeda aan aad ugu faafini waa gabay gaaban oo isna tilmaan ah kuna saabsan boqorka dugaaga ee aynu libaaxa u naqaan. libaaxu wuxuu Soomaalida u yahay astaanta xoogga, geesinimada iyo buruudka. ninka dhiiran ee goobaha dagaalka ka sheegan, ninka aan halista ka waaban ee warmaha ku soo ganan shafka u dhigta, ninkaas oo kale ayay Soomaalida hore magaciisa intay aar ku darto ugu yeeri jirtay Maxamed Aar, Cali Aar iyo wixii lamid ah. haweenka qudhooda toodii camalka ragga yeelata ee gar iyo guddoonba iyaga iyo geedkooda ka dhex muuqata iyadana aalay ayay magaceeda ku dari jireen. libaaxu waa bahalka ay xoolo dhaqatadu ugu cabsida badan tahay ee haddii aan wadaad la waayin reerkii meel dagaaba uu durbadiiba ka xirsi xiran jiray. qaar ka mid ah odayadii aanu soo gaaray waxay ku sheekayn jireen ka hor qoyska amaba dadka uu weerari doono muuqaal ahaan inta aanu libaaxu ku soo gaarin in la dareemo dabayl qabow badan oo lala qabandhacoodo kana soo hormarta. dabayl ay waayo araggu ku garan jireen aas libaax amaba gooldii haalsani mid ahaan ama wadar ahaanba inay kol dhow ku soo fool leeyihiin. xagga buruudkana waxay rumaysnaayeen eebbaweyne inuu bahalka ku abuuray haybad dheeraad ah oo lagaga baqo. indhihiisa iyo kuwa aadanuhu hadday qumaati isugu dhacaanna in kuwa aadanaha uu iftiinka araggu intii cabbaar ah ka maqnaado. sidaasoo ay tahayna waxaa laga warhayaa degaamada Soomaalida qaarkood inay ka jireen rag habeen madow uu libaax u soo dhacay oo dad ka qaaday ama xoolo ka laayay, dabadeedna aarsi u qalab qaatayoo waa berigii inta raadkiisii qaaday barqankii ka kor dhacay isaga oo baruurtii xalay la idaadsan oo geed harac ah gedi cad u jiifa. halkaas baa fooda la isdadi jiray. inkastoo in la rumaysto ay adag tahayna waxaa la wariyaa marmar ninkii ceelka qabay inuu adkaan jiray oo libaaxa goobtaa ku dili jiray. nin ka tegey
oo fool adeegii tiirinimo isku darsaday ayaa kolley hawshaa biimada ah u bareeri jiray dabadeedna waa haddaan tiisii ku geline wuxuu mudnaan u lahaan jiray ammaanta iyo aqoonsiga bulshadii uu ku dhex noolaa inta la isu tilmaamo oo farta la isugu fiiqo ayaa la odhan jiray kaas ma aragtaa waa ninkii dayr hebla libaaxa meel heble ku dilay markuu geela ka laayay mar walbase ma ahayne taa oo kale kolkol dhif ah ayay dhici jirtay inta badan waa la aqoonsanaa ba'naanta libaaxa reer miyiga soomaaliduna caado uma lahayn inay xoola kula diriraan arrintaana waxaa muujinaysa mahmaahda caanka ee tiraahda libaax nin aan aqoon baa lax ka rita waxaa mahmaahda ku qarsoon canaan iyo yasid wada jira oo loola jeedo ninka lax uu kala tegay awgeed naftiisa u biimeeyey oo libaax ilaah isaga ka badbaadiyey uga daba tegey waa runo waxaa mahmaahda ku qarsoon liita macangaga inuu yahay ninka waxa uu libaax yahay garan waayey ee awooddiisa la wada qiray isaga laga indhasaabay aqoonsiga ba'naanta libaaxa ee bulshadii hore ee soomaalida waxaa lagu tusaaleyn karaa gabay uu inooga tegay nin magaciisa guluf cismaan la iigu sheegay waxaa malaha gabyaaga loogu sheekeeyey carro edeg inay ka jiraan rag libaaxyo rabaayada xerya ku haya oo maalintii 2-3 jeer hilbo loogu talagalay gacantooda ku siiya intay weliba saraaxaanna mar fadhiisiya marna kiciya taasi inaysan geesinimo ahayne ay kolley xeel iyo xirfad tahay ayuu guluf ka badin waayey kadib markuu warkii la amankaagay tix gaaban ayuu kolkaa tiriyey wuxuu yidhi xidigaha ninkii kala yaqaan iga xisaab roone nin xeraystay geel xero ka badan xoola iga roone ninka xarafka xaashida ku dhigi iga xuduud roone maskoo xiimi xoodhida nin qaban iga xiniin roone xabad hanata mooyee libaax meel xarshina jiifa war aarkaa nin xoodaamiyaa xeelad iga roone libaax nin aan aqoon baa lax ka rita ayay soomaalidu ku soo koobtay fikradda ay bahalka ka qabta iyo sida ay u aragto raaga ogaasna wax kale ma yeeline aragtida iyada ah ayuu si qurux badan ugu sheegay 4 meedis oo gabay ah uuna ku helay qiimaynta soomaalida la xilliga ahayd iyo kuwa xilliyada dambe dirkaba wuxuu raaga 4 meedis ku sheegay tilmaan kasta oo libaaxu leeyahay muuqaal ooga haddii ay tahay iyo haddii ay tahay falaadyadiisa iyo aadanaha markaa ay kulmaan dareemadiisa argagaxa ay ku dhaliyaan wuxuu xusayaa codkiisa hinraaga loo yaqaan ee marka uu maqlo ay ruuxa baqdin oo idil isugu timaado muuqiisa markii indhaha lagu dhufto cagaha wax laga daya iyo weerarkiisa lagama kabtaanka ah ee uu ku qaado meesiyada la shafeecsado xoolo dhaqataduna ay dabadeed si xun ugu cayrowdo indhihiisa gudgududan ee aan dhugashada loo dhammayn karin hadduu xataa xagaagii hore ahaa raadkiisa markii la kor yimaado laga gariiro cidiyihiisa afka badan ee wixii malagood galo uu ku soo haabto kuwa xuurtana aan laga aqoon iyo reenkiisa galiilyada kiciya ee aan aadanuhu u joogi karin intaasba wuxuu raaga ku qeexay meelisyo 4 ah oo sidaan soo sheegay uu ku mutaystay qadarinta bulshadii uu maalintaa u mariyey iyo annaga haatan noolba wuxuu yidhi codkiis laga baq araggiis la carar wadana cayreeye il casuusle raadkiis casjaba laga cabsoonaade cidiyo dhuuriyo oo faarbulow iyo reen baasle ma waa lala cayaaraa libaax laga cadhaysiiyey su-aasha uu raaga tixda ku idleeyey ee jawaabteeda la inaga sugayaa kolley waa maya maxaa yeelay libaax cadhaysane guuldarrada uu dad iyo dunyaba u geysan karaa waa wax aan ruuxna ka daahnayn oo soomaalida raacatada ahina ay waaye aragnimadeeda ku hubsatay waxaa sahartay su-aal kale oo ah maxaa talow tirinta tixdan raago ugu wacnaa runtii lama oga waxaase loo malaynayaa libaaxa laga cadhaysiiyey inuu isagu isula jeeday uuna ugu goodiyaayey rag inta isku dhaririyey mindhaagabay ku maagay dhegaystayaal barnaamijkii dhaqanka iyo hidduhu maanta halkaa inoo joogo